الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وفدقيني لباد أما حلقتيني لباد ويه وأنو كدفاعي دونه أما قيبت يعني كدفاعي نبا إمام الألباني. ونصيحة لله، الدين نصيحة، ما هننا ضد ردينا أما ضد أنا دي اللي كورن يا حمين إنه وإن كقيب قادنا دفاع الدين تيله يدد كذا. إن حلقة إن شاء الله تعالى وحالي هذا إن فان ولا فريق ما قطنا وحن حلقة وركو صومرني ترجمة إمام الألباني إن وأبترني يفضل جيسي علوم دي أمانة الإسلام كواوين تسوق هذلين قيبتها قيبان قدرنا إن شاء الله علوم دي إسلام كقيب كم يدان سوق هذا دونا حلقتنا إن شاء الله تعالى. حلقتنا كلا صوتنا وحوجها لنا يعني لب الموضوع، يعني أصل كمسألة إنه شاقنه حق إنه ألباني كتاقنا عقيدة ومنهج رحمه الله. سيدي ابن عثيمين أنكو صوم مرنين ويري منهج كيسو منهج سليمة، عقيدة السلفية عليه رحمة الله رحمة واسعة. إذن حلقتنا ولا لا يروح نسيو ودينا علومدي أمانتي علماء إمام الألباني إنه عقيدة الصحة هاي أو داعي سلفي أو من أهل السنة إنه يهاي قرري قار كمدا سوق هذا إنه كوي هو وينا عنك كمدا كوي أماني علماء أمانتي أهل فضل أماني الباني العلامة الإمام محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. محب الدين الخطيب محير رحمة الله عليه من دعاة السنة كود سنة ضدك أقوية روحا كمدا الذين وقفوا حياتهم كواسون نلوشودي كدغاي على العمل إن لغو عمل فلو لإحيائها نولين تسنة وحكم العلماء هو أخونا بالغيب مقناشها متكولالك النوغوة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ساسولي يا محب الدين الخطيب وحب الله هيبة من دعاة السنة noloshooda waxayba ka dhigeen ba in sunnada nabi maxamed la nooleeyo bay noloshooda ka dhigeen. ducaadaas waxaa ka mid ah buleeyahay walaalkeen maxamed naasir diin al-albani waa muhibbin al-khatib. ninka kale waxa weeye maxamed xaamid al-fiqi waa caalim weyn waa muassaskii ansaar sunna dalka masar. wuxuu yiri al-allama maxamed xaamid al-fiqi qaala wuxuu yiri al-akhu as-salafi al-bahatha al-shaykh naasir diin buyir walaalka salafiga salaf macayna waa maxay nisbatu ila salaf waay dadka hore wanaagsanaa u nasab sheegta caqiidata wa manhajan wa sulukan. wuxuu leeyahay walaalka salafiga ee baxaata waa maxay waa nin baaritaan u saaxiiba ma aha nin meel ku xirxiroon dad gooniya ka amar qaata. naasir diin al-albani way waa maanay as-salaf inuu macnaa caqiidadiis waa caqiidada salafka waa uu leeyahay. waxa kal abdul aziz bin baas soo qaadan laakiin hadal leeyahay masana soo qaadan oo kale وحليه لا أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علما وتوفيقا. الشيخ عبد العزيز ابن باز وحليه كما شكينا يا ألباني علم جيس يا فضل جيس يا واسع نمضى باريتان كيس إلى هذا يا عناية يكود يا سنة النبي محمد إلهي علمي يا توفيق به السيادية ساس ليه الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة. wadaadadii kutubta ka qoray tarjamadiisa waxaa ka mid ah sheekh ali maxamed ibrahim al-shaybani kitaab wuxuu leeyahay kitaab wuxuu qoray li yiraahdo oo kaga hadlayo xayaatul albani nolosha albani ninkaas qoray marka kitaabka ninka intuu soo qorin waraaq wuxuu u diray abdul aziz bin baas si uu ogala tashado bal inuu qoro kitaabka uu ka qoro albani. abdul aziz baa waraaq loo diray. abdul aziz bin baas wuxuu ugu soo jawaabay salaamun alayk wa rahmatullah salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wuxuu leeyahay intaa kadib qoraalkaad ii soo dirteen waa soo gaaray buu leeyahay. dabcan isaas waqti nooga qaadin Soomaaliya ku soo gudbinaya qoraalkaad ii soo dirteenna wuxuu kulansaday wuxuu ku dhex jiray waan fahmay buu yiri oo ah inaad go'aansatay inaad tarjamo waasicaad ka samaysid fadiilada sheekh al-allaama buu leeyahay maxamed naasir diin al-albani eragaas uu isticmaalay allaama abdul aziz bin baas baa dhahay iyo jacaylka ticeshihiin in aad qoraalkiinaas adiga tala gelisaan. wuxuu leeyahay wadaad ninka aad sheegtay ama sheekh aad sheegtay macruufun ladayna buu leeyahay macnaha tarjuma ka qor waa nin caalimi oo saxi macruufun ladayna buu leeyahay bixusn al-aqeedah wa sira caqiido wanaagsan buu leeyahay albani
iyo siiraya dhaqan wanaagsan iyo dacwada ilaahay inuu wado isagoo bixinaya juhdigiisii meesha ugu dambeysay juhdi la mahadiyey isagoo ku bixinaya xadiiska nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo caddaynaya xadiiska saxiixa midka daciifka ka caddaynaya midka beenta ka caddaynaya kutubtiisa waasica uu qorayna dhammaantood buu wuxuu leeyahay waa camal iyo shaqo looga mahadnaqo muslimiintuna waa ku naaficeen buu leeyahay marka ilaahay ajirkiisa abaalmarkiisa ha u laalaabo ilaahayna ha ugu kaalmeeyo inuu khayrkaasi wanaaggaasi sii laba jibaaro juhuuddiisa iyo najaaxiisana allaha sii barakeeyo waqad axsantum buu leeyahay marka wadaadka usoo jawaabaya moogtahay adiguna yani wanaag samaysay marka ad caalimka weyn waxbaad ka qorayaa tarjamaan ka qorayaa iyo siiro aad tidhi ilaahay marka dhammaantiin ha barakeeya buu leeyahay cilmi iyo hanuun iyo xaqa loo gargaara ha idiin wada siyaadiyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ahlu fadliga kuwaas ah ahlu fadli kale fadligooda u qiraya ninka le maxamed saalix cuthaymiin nin baa su-aal ka weydiiyey wuxuu leeyahay albani waa nin aada ugu dadaala ku camalfalka sunnada bidcana la dagaalama caqiidaha ku saabsanaato ama camal ha ku saabsanaato mualafaadkiisii intaan ka aqriyay ka arkayna arrintaasaan ka arkay inuu yahay cilmi weyn mid u saaxiiba ilaahayna dad badan uu ku anfacay hadal dheer buu lahaa yani qeyb ka midana waa soo marnay waxaa ka mid a culamada ammaantay doctor amin almisri waxa weeye nin madax ka ahaa daraasaat ulculya lilxadiid amin almisri wuxuu leeyahay inta badan wuxuu sheegi jiray oo dhihi jiray jaamicada islaamiya markuu yani macalinka ka ahaa doctoorkaasi wuxuu dhihi jiray annaga waxaan ka faa-iideysanaa cilmigaa idin barno waxaan ka keenay albani baa idinka baranaa buu leeyahay soo maarad markaasuu asaga isxaqir wuxuu leeyahay xataa annaga doctoora inaan ahayo wax badabaraya haya arkinib inaan cilmi leeyahay waxaan ka keenay waa albani waxaan ka keenay albani imaam alalbani buu leeyahay asagaa nooga awleysan buu leeyahay darajadan wadan doctor iyo waraaqda leanna in badan aad doctooro wadato haddana cilmi aan waxba ka aqoon waraaqda unbaa iska qaateen soo ma aragtaan walaalayaal hadal dheer buu lahaayo aada tawaaduc nooga muuqdo waxaa ka mid a culamada caalimkii la ohan jiray zayd bin cabdilcaziiz alfayaad isaguna wuxuu ahaa macalin buu ka ahaa amba ustaad buu ka ahaa kuliyadda usuuluddiin jaamicat alimaam malik sacuud riyaad ku taalla wuxuu yidhi ina sheykh maxamed naasir iddiin alalbani min aclaami albaarisiina buu leeyahay waa nimankii cilmiga ku caanbaxay casrigan xadiiska iyo duruqdiisa rijaashiisa darajadiisa sixa la-aan ku caanbaxay buu leeyahay waana camal wanaagsan wax saacadahaada aad ku bixisina waxa weeye waxa diinta laga dhigay oo beenta inaad ka saartid tan saxda kala ogaatid waqtigaada taa inaad ku bixisaa muhiim buu leeyahay waxaa ka mid a culamada ammaantay asheykh cabdiraxmaan ibni cabdilkhaaliq waa kuweyti way isaga waa nolya wuxuu leeyahay sheekh naasiruddiin wuxuu leeyahay kama suulin ilaa yowmina inuu yahay madar iyo roob ilaahay soo diray madarka iyo roobkana ooma dhibicdu meesha ku dhacayso roobku markuu da-ayo dhibicdu meesha ku dhacayso ooma abayesho meesha yarta ku dhacda albani waa saasoo kale bule waa roob oo kale ilaahay soo diray wadamadii dhun buu barwaaqeeyay cilmiga dadkiiba ka faa'idaystay bule marka meeshuu degayay meesha cilmigiisa gaarayaba danka yani waa gaarin wey macnaha hadal dheer buu lahaa wadaalika buu leeyahay naasiruddiin albani jamaaca khaas waa dacwada ma aas-aasin in leanna wuu ka weynaa waxaas buu leeyahay jamaacooyin firaq inuu ku biiro hadal dheer buu leeyahay cabdiraxmaan bin cabdilkhaaliq hadal dheer buu leeyahay kutubtiisu qaar ka sheegay sida ka sifat salaati nabiy wa taxdiir saajid min itikaadi alqubuuri almasaajid iyo kuwo kale cilmigiisii bay noo soo rareen buu leeyahay dadka cilmiga raadinayay kadibna xalaqaadkiisii iyo saaxiibnadiisi dadka waa ku tarbiyoobeen wuxuu leeyahay lama koobi karo buu leeyahay dadkii wax ka faa-iiday caalamka islaamka iyagoo kala jamaacooyin oo kala kooxo ah waana runtiis hadalkiis waxaa ka mid ah cabdiraxmaan bin cabdilkhaaliq waxa uu yidhi sidaasoy tahay buu leeyahay sidaasoy tahay oo caalimkaasi ummadday ka faa-iideen buu leeyahay iyadoo sidaa tahay haddana kama suulin buu leeyahay ninka caalimka fadliga iskale ee wanaagga iskale kama suulin buu leeyahay dad inay cadaawad u qaadeen oo ay dadka ku dirayaan isagoo fadliga saa u leh buu leeyahay markaasu wuxuu leeyahay wanas'alu laha an takuna mansilatahu cinda allahi ilaahay inuu mansilatuhu cinda allahi ajal wa acdam rabbana اغfir lana waliikhwana liladina sabaquuna biliimaani walaa tajcal fi quluubina gila liladina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim culimadii ammaantay kadalika aad bay u tiro badnaayeen waxaa ka mid ah asheykh maxamed ibraahim shaqra ayaa isaguna waa
والرئيس بكان جري مسجد الأقصى وحير لو أن شهادات waraaqooyinka كي shahaadooyinka dawladda amaanta laga qaato hadday shuyuukh sunnah la dhihi lahaa hala siiyo ya calaamul xadiis wal athar fiik shuyuukh sunnah iyo shuyuukh culimada diinta iyo culimada islaamka dhammaan shahaadooyinka haddii la siiyo waraaq doctor PhD wax kasta la siiyo shahaado sharaf wuxuu leeyahay hal shahaado oo kamid ah na la siiyo Albani halka shahaada Albani la siiyo ka sharaf badan waxa soo dhan soo maaragtay عليه رحمة الله رحمة واسعة بل وأستاذ العلماء بالله الباني علماء صدام بو علماء وياه وأستاذ العلماء وشيخ الفقهاء ورأس المجتهدين في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أكرمه الله في الدارين سأسولي وذات كاس علماء حكم ده الشيخ صالح الوحيدان سأله الوحيدان وعضو هيئة كبار العلماء سؤال بالويدي العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان وحال ويتي وقتياد الدنب وحا فافتي بالي ددك قاركود waxay durayaan Albani waxayna ku sifeynayaan inuu yahay waxayna ku sifeynayaan irjaa qaarkood waxay ku tuurayaan aqeedadii jahmiyada dadkeena saa ku faafinayaan bulay maxaanu jawaabtu waa maxay culimada kaliya wuxuu leeyahay jawaab nasiihati liman yakhudu fi hada al-amr waxaan u nasay arimahaani waxay qofkii dhex galay oo sheegay waxaan u naseexaynaa أن يتقي الله إنه إلهي كعب صده جل وعلا ويكف عنه أرنتان أسكك هره أولا بليا أن الرجل مات نينك واد انت رحمة الله عليه ود انت أفضى إلى ما قدم وحو شقيستي بانا كورية ونحن الأحياء نقول وأن الله ينبغي أن نفكر فيما سنقدم وما سوف نقدم عليه من الأعمال أنه هذا وحان وإسلام هو قضينا كفكرن استقام يا حمايا نكون مشغولين وأن نتقي الله إلهنا كعب صنا أيال الربا إما إثارة أما إثارة مثل هذه المواضيع بلا أما وحانو كان إن سوقت قاد ألباني وإرجاع كل عيو الرجل بدون شك بلا كان ناصرا للحديث حديث بوجر قاري وله آثار تشكر آثار لغم هذا لغة يدحل بلا وجاء واستغل في المدينة في الجامعة الإسلامية جامعة الإسلامية وهذا معلنك وشقاق قبط ولاية أيام تولي أمرها من قبل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز مركم مدحك رحمة الله عليه وما وصفه عبد العزيز بن باز بإرجاء عبد العزيز بن باز نواقاسي كما صفين الباني إرجاء كدعي ولا وصفه بالتجهم كما صفين ولا عابه من عرفه من طلبة العلم في المدينة لا أعرف أن أحدا عابه قف عقيدة دي صدري نمقرنا يبولي صالح السحيدي معناها قف أهل العلم كم إذا قال لي نن علماء الإسلام كم إذا أو وحكش شيء الباني وعقيدة صدري مجرب بوليه هذا الدير بوليه هاي كده وحوش كتبتي صغار كم إذا كويجو منفعة بدنا وحو أن وحو حلو قري جرا كم إذا كتاب إرواء الغليل كتبت علم التخريج كم إذا سوق شبه هذا مرة آخر قحولي فالنصيحة لكل أحد من طلبة العلم وحنو نستحين يا قف كستوء علم الضلبية أن يكف عن الوقيعة في عرض الشيخ ناصر الدين الألباني إنه وحكش عرضي الألباني كاسو نصنا ذو أديجي كتب بدن كتبتي قار شيء مشكات المصابيح صحيح السنة سلسلة حديث ضعيف والصحيح وكذلك كتب بدن إني أرنتها كهرام بقول نستحين يا وليه وحكى له ويدي الدكتور ربيع المدخلي هذا كان وحال يريم كورن علامة الألباني ضدك كت شيء إنه يهي بدعة الإرجاع عصري كان يسجى يردديس إن لقد حري بحكم جوابي الألباني يقول إيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية مسألة سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى حلقتنا اللبادة حلقتنا الصدحة إن شاء الله تعالى وحليه هي وانتقد الأحناف الباني أحناف الأمردي إيمان كان قول وعمل واعتقاد إنه يهي وآمسية فضلا عن غلاة المرجئة اسكدا غلاة المرجئة مرجئة الفقهاء كله يقنا حنفية كترسنا أيوم النقدية بقى نسأل الله العافية لماذا هؤلاء يحاربون كواسم محاولات دقالمية تلاميذ الألباني أرضي الباني محاولات دقالمية باسم الإرجاء وطورية ويتركون سيد قطبي طبعا دي ربيع المدخل حكمي أنا منكي آت أوردي سيد قطبي marka saas uu tusaale ugu soo qaadanay sayid qudbina waa ka tagayaan xalqadii horena waa ku soo ishaarnay waa ka tagayaan kutubtiisa ummadda u soo jiiday galbeedkeeda iyo barigeedaba dalaalaad aad iyo aad u weyn
marka qaar buu sheegay waxaa ka mid ah albani bidca uu la dagaalamay uu leeyahay bidcatu lirjaa dood adag buu nimanka kula jiray sida abu quda ninkii la oran jiray iyo kawthari iyo niman kale buu sheegay yacni hadalka waxay noo dareensiinaysaa inuu la dagaalami jiray albani murji'ada iyo caqiidatu lirjaa fa kayfa u dhihi kartaa marka murji buu ahaa ama caqiida murji'ada ayuu waafaqay waa been abuur meeshii u dambeysay wey been abuur meeshii u dambeysay wey culimmadu walaalayaal xisaab ma lahan laakiin qaar aan magacyada idiin sheegay inta aan idiin sheegin qaar ka mid a magacyadooda idiin sheego culimmadii isku casriga ahaayeen isla noolaayeen way yani xataa xaram almadani oo madiina ay iskala daraasan jireen waxaa ka mid ah mufasirkii weynaa maxamed al-amiin ashinqiid mana turin caqiidis wax ka sheegay bal xaramkaasi wax ka wada dhigi jireen idan waa maxamed naasir الdiin albani waa noola kadalika alcalaamatu sheekh maxamed naasir sicd mufasirkii weynaa kadalika culimmada kale yani aad ku tiro badnaa waxaa ka mid a cabdulmuxsin cabaad ilaa yowmina hada waa noolyahay mana ka suul inuu xaramkii wax ka akrinayo caalimkaa weyn bal wuxuu leeyahay albani wuxuu ahaa dadka culimmada naadirka ah ee ku caanbaxay cimrigoodana geliyey sunnada iyo caqiidada saxda inuu adeegaan dadkana ugu yeeraan caqiidadii salafkaana ay u gargaaraan bidcana la dagaalamaan sunnada nebi maxamed ay difaacaan culimmadaasoo arrintaa ku caanbaxay ayuu ka mid ahaa buu leeyahay ee naadirka ahaa albani cabdulmuxsin cabaad baa leh xafidahu llahu tacaala kadalika culimmada ammaanta isku waqtiga noolay waxaa ka mid ah caalimkii weynaa ee la oran jiray xamuud ibn cabdillahi tuwajiri muxuu yidhi alalbaniyu alaan calamun cala sunna albaniba marka kugu soo dhacaba sunnadii nebi maxamed baa kugu soo dhacaysa buu leeyahy altacnu fiihi in la tacniyo wax laga sheego icaanatun cala tacni fi sunna waa kaalmo loo kaalmaynaya in wax laga sheego sunnada ogow haddee xumudu tuwajiri xataa ruduud baa dhex mari jirta isagii albani isagoo haddana sidaasta wuu difaacaya sida masalatu xadiiska in allaha khalaqa alaadama calaa suuratihi xadiiska ay isku radin jireen wakadalika dood aad iyo aad u adag iyo ruduud caniifa ah ayaa dhex mari jirtay albani iyo tuwajiri bal tuwajiri saaxibu ruduudaad buu ku caanbax masalatu lxijaab almara gaar ahaan asturka wejiga iyo kafaynka ayay isku radin jireen oo kitaabka haddaan soo sheegnay markii hore aan kutubtaan sheegaynay tuwajiri wuxuu ku radinay ula jeedo haddana tuwajiri wakaas wuxuu leeyahay albani waaba sunnadii nebi maxamed baaba lagu gartaaba buu calaamad u yahay haddana waa isradin jireen weliba rad caniifa bay isradin jireen liannahu tuwajiri min ahli lcilmi waalfadli ahlulcilmiga kale iyo fadliga dadka kalena waa qirayaa walow khusuumaba kala dhexayse amaa sikaarta iyo kuwa ducafadaa ducafaa lcaqli xudathaa lasnaan sufahaa laxlaam kuwaasi noocaasa laa yacrifuuna shay-an walaa yakaaduuna an yafqahu wax ay xataa uma dhawaanay inay wax fahmaan ishaacaadka beenta iyo maaragtay magac isku samaynta iyo waxa unbay ka shaqeeyaan keliya marka ittaqullaha ilahay ka cabsadaan ilahi bal ninka la yihahdo xumaydu tuwajiri isagoo saas ay ruduudda isku dhex mari jireen oo saa isu radin jireen ayaa hadda kahor waxaa la siiyey jaa-izad yani jaa-izat malik faysal yani waa shahaado sharaf la siiyo sanadkiiba mar la bixiyo oo loo bixiyay jaa-izat lmalik faysal sanadkii mar baa la siiya qofka islaamka u gargaara amba in badan wax u qabta iyo cilmiga hadda yaan dhowt waxaa la siinayay doctoorka hindiga u dhashay doctor zakir ee hindiya odgana beas t v sidoo islaamka ugu adeegay dadka islaamka u gargaaray islaamka u difaacay ayaa shahaadadaasa la siiyey tuwajir shahaadadaasaa la siiyey munaasabadii muxuu ka yidhi hadalkan uu ka yidhi wuxuu yihi ina sheikh naasir الdiin alalbani min axaqi man yucdaha likhidmatihi lisunna likhidmatihi sunna wuxuu leeyahay sheekh naasir albani baa mutaystay buu leeyahy shahaadadan in la siiya aniga ma mutaysanba lianna sunnada u gargaaray buu leeyahy allahu akbar ahlu fadli wa kuwaasa ahlulcilmi wa kuwaasa cabdikariim ibn cabdallah khudayr waa caalim waa faqiih waa noolya ilaa yowmina hada heer kibaar alculamaa waa ka tirsanya wuxuu leeyahay waxaa jirta buu leeyahay hujuum aada u weyn oo albani lagu haya hadda buu leeyahay su-aalaa la weydiiyey su-aashaasaa la weydiiyey marka waxaa ra'yigaada maxaad ka qabtaa dadka albani weerarayo caqiida xun inuu aaminsanaa ku tilmaamaysa wuxuu yidhi alalbaniyu raximah llahu tacaala yucaddu min almujadidiina fi lcilmi alxadiis fii nadarina ilaa acmaalihi raxmat ullaahi caleyh mu-alifaadkiisa iyo dacwadiisa oo dadka ugu yeerayay tamasuk in la qabsado sunnada nebi maxamed la nooleeyo sunnada nebi maxamed qarnigan dambe quruntan dambe waxaan goynaynaa buu leeyahay yaqiin ka dhigaynaa inuu ahaa min almujadidiin
من حيث يعني الرواية حديث وجود، لأن حديث هو لما نوع علاقة يعني علم جيس من حيث الرواية ورنت علم الرجال، من حيث الدراية وحق فقه فهم كذلك أصلا لبضر نعم هو عسبونيسية مركا قف كم رما الباني علم جيس ما تشربوير، وأنا من أهل الفضل والحديث وكذلك. هذا الكاس الشيخ عبد الله كذلك علماء حكم عبد العزيز الراجحي وعالم وين أسجنه ومعروف ولا يقان ونولي إلى يومنا هذا. كذلك الدكتور العالم صالح بن سعد السحيمي، وكذلك علماء كله يعني حساب ما له ولا ليال علماء ذي كهذا الشيء. وحنكون سوق التمي وحوي هذا القيم بدن ابن عثيمين ليه رحمة الله عليه. وحنا نوشي قيادتك الباني إرجاع كتبه وحايهم بنبرية قاتمر تاس أيام كسو جبين دونا موضوع عن غيبتان لبعض إن شاء الله تعالى. إلهي هدو إدمو أعزائي مركب وحاربنا إن نسلوق عنه ولا ليال إن ay dadku fahmaan in beenta caalimka lagu been abuuranayo aysa wax la joogin oo sal iyo raatoona lahayn. haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. ninka caalimka islaamku u adeegay 99 dhintay inaan u ammaano ilaahay naxariis uga dalba nagu leeyahay xaqiisina faafinay ama inaan turnaa maya akhrisomankana dadkoodii hore markay wax ka sheegaan baa inkaartu ku dhacaysa. dadku hadday dadkoodii hore ee wax ka dhaxleen ay caayayaan har iyo hameen baraka malan dadkaas ka quuso ka fara dhaqo kuwaasi ka luqluqa way. wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo maxamed ibn saalix al-Uthaymin raxmatullaahi calayh waxaa yani awqaafta nimanka madaxda ka ay arrimaha islaamka dowladda qatar ayaa la soo xiray ibn Uthaymin xagga taleefanka marka su'aal baa la weydiiyey. su-aashu waxay ahayd qaar dadka ka mid ah albani waxay ku leeyihiin wuxuu leeyahay iimaanka albani masaa'ilul iimaan qowlul murji'a ayuu ka qabay, maxaad ka dhahaysaa arrintaas? هذا القبي ودليل هذا القبي قال معناه سوحة ويه qof yahow aabaha haddaad aragtay wiil aabihii caayaya waxaa wiilka ku leedahay war aabaha ma gaaraysi waa kii sababtaad adduunka ilaahay kugu keenaye sababtiisa ilaahay adduunka kugu keenaye aamus aabaha waxbaa gaari maysa weligaa caydaadan waxa gaarsiin maysa gabay noocaasuu keenay marka daliisada macnaheed waa maxay albani waa aabaha diinta wey aabaha cilmiga iyo sunnada saxdaa wey marka kuwa diinta sheeganayo war aabihin waxbaa ka sheeginina marka wuxuu leeyahay al-albaniyu caalimun muxadithun faqiihun wey وعالم محدث أو علم يقان أو فقيه هاتنا ثم ركتان ولو حق حديث كبه هوبته وحق بناده ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا هذا إنه عقيدة إرجاء تمنيي أن بوح كقاطي هذا التصينا ولقي كمان مقالكم أنا أعرف لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إنه مرجئة لكن بالله يكون دوني مسلمين تيضتك إن قاليسيان waxay doonayaan waxay ka leeyihiin buu leeyahay albani iyo dadka la midka ah ee difaacaya xuquuqda muslimiinta waxay ku tilmaamayaan inay yihiin murji'o oo ay sahal sunnah maxay u durayaan marka waxa weeye takfiirka baadilka buu hor istaagay nimanka ugu adadka way casrigan sida darteed wuxuu oran jiray nimankan inay muslimiin inay yihiin ba shakiga jira nimankan dadka qarxinaya dadka dilay inay muslimiin yihiin laba mid way ima jaahiliin way oo ima dad ba soo disay calaamada muslimka loo gelisay islaamka loo xumeeyay labadaas u dhigi jiray mid damaan u badanahay u dhigi jiray inay niman dad soo adeegsado islaamka lagu xumeyn rabo suuradiis yaani waa ninkii ragga ugu adag buu ahaa masaladan oo nimanka gaalaysiinta baadilka dadka muslimka gaalaysiinaya ee ismoodiya ayaguna islaamka leeyihiin oo ay dadka ka xigaan oo ay moodaya in islaamku yahay guriga ay degan yihiin qolka ay ka soo baxaan oo ay xiranayaan markay rabaan cid ay rabaan gelinaya ee moodeen islaamku saas oo kale yahay nimanka noocaas albani aad buu ugu adadka aad buu manhajkooda u ridin jiray aad buuna oo la dagaalami jiray wax kale ay ku dacnayaan markay waayeen waxay dhaheen waa murji laana al-khawarij waxay ahl sunnah ku tilmaamaan inay yihiin murji'a ay ku tilmaamaan مرجئاتنا أهل السنة محي دهان خوارج سمارت لأن لبضوضا وعكس بيسويه إلهي سوهانونية مركو حليه هاي فهو من باب التقليب ألقاب السوء وما قاعد يحن ولسكب حين إلهي نتاوى كالريب وأنا أشهد بليه ابن عثيمين حليه فقيه وقت كان وحليه أنا وحن كمقراتي كعيا والبان أو مقراتي كعيا إنه يهينين استقامة أو توصن عقيدة دي سنة أيتاي عقيدة الصحة ويسير جا كتري أسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة حلقنا لبعض انت تشوقي دونتا إن شاء الله تعالى